السلام عليكم صاحبي halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii afraad ee qisadii jacayl ee Faysal iyo Faiso oo meel xasaasi ah marayso. Faysal waxa uu bilaabay in uu hadal la qaybsan waayo Faisa mar walba waa uu fikiraa farxadii iyo reereyntii guriga waxay isu bedeshay mugdi iyo murugsanaan. Faisa waxa la gacanta kuma aysan hayn waxay go'aansatay in ay Faysal ka sugto wixii xal ah oo ay ku wada noolaan lahaayeen. Faysal waxa uu la xiriiray qoyskiisii asigoo ku leh waad run sheegteen oo gabadhan qabay ma ahan reerka aan mooday. Waxa ayna ugu jawaabeen reerka isma geyno gabdhaheena ha ceebeyneen. Adeerkiis oo nin weyn ahaa dhaqanka Soomaalidana aad u kala yaqaan ayaa ku yiri haddii nin u bareero arin falkaani oo kala ah oo ay noqoto in uu guursado gabar la haybsooco waa aan ka samri jirnay oo waxa aan ka soo qaadi jirnay nin aan xabaalnay. Sidoo kale waxa uu dhahay adeer soo ma ogid magaca aad hugun tahay sharafta uu leeyahay ma gabar aad geedo baad weyday marka aad guursanayso gabar aadan geyn adeer nolosha maxaad isugu xabaalaysaa. Faysal asagoo is ogeyn baa ilin ka soo daadatay. Adeerkii waxa kale uu ku yiri ma waxa doonaysaa inay dadka nala hadli waayaan oo la guurso waayo gabdhaheena ilaan ceeb looma dhinto war maxaa ku helay adeero gabadhan fur waa hadii aad doonaysid in aad sharafteena iyo sumcadeena kor u qaado. Faysal wax hadal ah ma uusan dhihin qaracan awgeed. Inta kadib Faysal aad buu u ciishooday. Sawir uu la sawirnaa Faisa oo markaa waleedka ku siday buu la soo baxay oo jeexjeexay. muddo yar kadib Faysal waxa soo wacday gabadhii dariska la ahayd ee duminaysay reerka quruxda badnaa waxayna ku tiri gabadha aad qabto waa ay ku qiyaamaysay jaceelkeeda hadduu run ahaa ma aysan ka qarin lahayn qabiilkeeda waxay rabtay kaliya hantidaada yaa guursada gabadhaani oo kale waxay ogeed in aad tahay nin wax bartay oo ka dhashay reer ladan ah inta ay goor hore tahay oo ay dadka maqlin ina adeer gabadhaani isaga tag oo ka fogow. inta kadib Faysal ciilkii iyo caradii waxa uu kula dul dhacay Faisa asigoo leh qabiilkaada waxaad iga qarisay in aad aniga i hesho awgeed. Faisa waxay ku dhahday ma aanan ogeyn in aad tahay qabiileyste qof qabiil ka dambeeya. inta kadib Faysal waxa ku weynaatay caradii waxa uuna bilaabay in uu gacan u qaado Faisa waa uuna garaacay waxa uuna jibiyay kalxanta. Faisa waa ay xanuunsatay waxayna u wacday booliis. isla markiiba booliiskii ayaa yimid waxayna isku dayeen in ay Faysal qabtaan. Faysal aad buu u qeyliyay asagoo ku celcelinayo ma garanaysaan gabadhaani waxa ay igu sameysay. Faysal waxa uu isku dayay in uu ka fakado booliiska asigoo isticmaalaya xoog balse booliiskii baa si xoog ah u qabteen oo waa ay xirxireen. Faysal waxa loo kaxeeyay xabsiga. halka inoo joogto qaybtii afraad ee qisadii jacayl ee Faysal iyo Faiso. daawada haddii aad qisadani ka heshay fadlan muuqaalkan ila agsaab haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe dheh furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena isla marka inuu soo gelino tan intaan kulmayno qaybta xigta sidaas iyo nabadgelyo.